kulan waxaan wanaagsan asxaabteena daawanaysa meel walba oo dunida joogtaan ku soo dhawaada wararka tahmeediya oo hadahan oo kala ah hawada idin soo marino qodobada aad daawan doontaan waxa kamid ah ciidamada ammaanka ee magaalada Muqdisho oo gaari ay arday saarnaayeen ku furay rasaas dhaawacyo ka dhashay gaarigaas iyo ciidamo Itoobiyaan ah oo lagu weeraray qaybo ka tirsan gobolka Gado guddiga madaxa banaan doorashooyinka qaran oo maanta aqalka sare hortagay wasiirka waxbarashada oo la kulmay qaar kamid ah ardaydii ka cariisneed imtixaankii la baabiyay akhbaaraadka caalamkana qaramada midoobay oo digniin adag u dirtay raashka qodobada iyo qodobo kale ayaan idin soo marin doonaa hawada fadlan haddii YouTube-kani aad ku cusub tahay like subscribe inta basaan warkiyo faahfaahsan ciidamada booliiska ee magaalada Muqdisho ayaa gaari ay saarnaayeen arday iskooley ah ku furay rasaas waxaana ka dhashay dhaawaca 3 arday oo isla dhalatay oo xilligaas saarnaa gaariga halkan waa isbitaalka Shaafi waxa lagu baxnaaninayaa Safiya Daahir iyo Hodan Daahir oo maanta ku mid noqday dadkii ku xeeloobay gaari lagu rasaasiyay checkpoint ciidamada ay ku lahaayeen degmada Dharkiile ee gobolka Banaadir saakay si nabad ay ugu baxeen hoygooda waxay u socdeen iskuulkooda halkaasi oo ay ka socotay waxbarashadii gabagaban u ahayd oo sanad dugsiyeedka qaarkood imtixaan ay fariisanayeen halka qaarka kale muraajac ay qaadanayeen asaatay gaarigii ay la socdeen oo aanu cabdweynaha oo lagu rasaasiyay degmada Dharkiile barka ciidamada controlka ay ku leeyihiin ayaa waxa ay keentay in 3 qof oo ayagu ka mid yihiin in ay ku xeeloobaan halkan ayada lagu baxnaanaya xaaladoodu waa ay wanaagsan tahay sida waalidiintu ay noo sheegeen waxaana waalidiintu ay sheegeen inay ka war heleen in loo soo sheegay caruurtooda oo gaari lagu rasaasay isla markaana xaaladooda ay liidato waxay u ahayd xilli naxdin badan kadib markii loo sheegay in aysan ka qayb gali karin imtixaankii ka socday iskuulkii ay dhiganayeen kadib markii gaarigii ay la socdeenba ay dhibaato qabsatay Sakariya Daahir oo kamid ahaa dadkii la socday gaariga oo waxyeeladu ay soo gaartay ahaatee xaaladiisu imika ay wanaagsan tahay aniga saaka waxa soo baxnay kii xaafada gaari soo raacay gaari marka dukaamada mareynay gaari ninka oo lacag la weydii hooda lacag waasi ninka lacag labaad inuu qaato waa ka fakana oo ord markuu ka fakado hooda aan jooji aan lacag labaad anaga siinayna iska jooji hadaan markuu ninkan siifkana markuu arkay nina albaabka gogosii nina ka degtay ninkuu ka degtay ninka in loo joojiyo maleeyo soo socdo gaarigu sii waday hadalku sii waday waxa saddeed ninka uu ka fakaday xabad soo riday xabad gabadha ku dhacday anayna gaarigaas ku tuurnay marka sidee ku gaarinaa hani gaari markaas ka tuuray lugta gaari markaas tuuray lugta ay baxday ani kribo ajarka la jaray dardare anina jilibka ay dardare maanta aad muraajaca la qaadinay ani salkay form 2 way iyo kan laba gabdhood form 3 way muraajaca socod bari aan taal galay mid kamid waalidiinta caruurta halkan lagu baxnaaninayo ee maanta waxyeelada soo gaartay kadib markii la rasaasiyay ayaa waxay sheegeen xaaladda hadda ay soo hagaagayso marka laga reebo mid kamid gabdhaha oo imika ay xabada ku jirto asaatee imika u rajeynayaan in xaaladeeda ay soo hagaagto magacayga waxa waa Macquli Cali ilmahan maanta wax gaareen waxa uu ahay eeda iyo habaryar labadaba aniga guriga joogay telefoon ay soo dhacay waxa maqlay ilmihii waa dhaawac meel xabada lagu furay waa soo baxay isbitaalka imaada alxamdulillah si aad wax u gaareen oo ku maqlay sidii noqdeen ilaahay yaa u nimcay laakiin arday ahay gurigooda ka soo baxeen gaari waxay saarnaa hoomeyga darawalka waa la istaajiyay madax adeegay askariga xabada ku furay ilaa haddana meel ku sugay ma naqaano oo baxsan wayahay xaaladda ka waran marka labada gabdhood alxamdulillah mid dhaawac xabada dhex fadhido ilaa hadda wali jawaabta ma soo bixin ilaahay uu noo saqray midna waxay ka dhacday daaqada dhabarka wax ka gaaray jug way jirtaa sayd wiilka jilibka wax ka gaaray aad u burgeysana maadaama ilmaheen iyo iskool u socdaan dhibaato loo geystay guri imtixaan bilaabay oo ay dilbadeen imtixaanka qaar u socdaba gabdhaha way wadeen imtixaanka wiilka la muraajaca u socday way askariga wallahi kulli Soomaali hore u baabi'i jirtay kamidaan anaga ma fahanti alxamdulillah ilaahay uu noo saqray inta badan dhacdooyinkan ciidamada dawladda ay u geysanayaan dadka shacabka ah ama gaadiidka ayaa ka dhaca isgoosida Muqdisho ama meelaha ciidamadu ay ku baaraan gaadiidka asa ahaatee waxa la sheegay la imika in uu baxsaday askarigii geystay ama rasaastaasi ku furay gaariga ay la socdeen dadkaasi kala duwan oo ay qaarkood baarday ahaayeen laamaha ammaanka iyo dawladdu wali ma aysan ka hadlin dhacdadaasi dadku ay ku waxyeeloobeen
golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo maanta kulankoodii caadiga ahaa ku qabsoomay magaalada Muqdisho waxa hor yimid guddiga doorashooyinka kulanka guud ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta waxa hortagay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaran golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa warbixin ka dhageystay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Xaliime Ismaaciil Xaliime Yarey ayaana ugu horeyn u sharaxaysa golaha senatarada waxyaabihii u qabsoomay guddiga anigoo bogaadinaya meesha uu hadda marayo ansixinta iyo dhameystirka shuruucda doorashooyinka waxay u fududeynaysaa guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka in uu dejiyo ansixinta xeer hoosaadyada u diyaarsan ee qabyada ah sida xeer nidaamyaha diiwaangelinta codbixiyaasha xeer nidaamyaha maamulka doorashooyinka xeer nidaamyaha wacyigelinta codbixiyaasha xeer nidaamyaha xalinta khilaafaadka ka dhasha doorashooyinka xeerka habdhaqanka saxaafadda xilliga doorashooyinka xeerka habdhaqanka xisbiyada siyaasadda xilliga diiwaangelinta iyo doorashooyinka xeerka habdhaqanka kormeerayaasha doorashooyinka iyo xeerar kale oo la xiriira arrimaha doorashada oo uu ka mid yahay xeerka genderka aan soo saari doona asagana haddii ilaahay yiraahdo dhanka kale qaar ka mid ah senatarada golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa su'aalo ku aadan doorashooyinka Soomaaliya la filayay in ay ka qabsoomaan iyo suurtagalnimadooda ka weydiiyay guddiga waxaan ognahay in dalka marka doorasho ka dhici doonto saddex hay'adood oo isman dalku leeyahay annaga waxaan aaminsanahay baarles baan hal hay'ad baan naga maqan waa hay'adii garsoorka doorasho haday dhacdo wadankan ka dhacdo oo doorashada lagu murmo yaa kala saari doona asxaabta yaa ummadda Soomaaliyeed garsoor noqon doona ma guddiga garsoor noqon doonta iyada diilo ama idin yeelaya maxay idinku dhiirin karin karaaya inaad tirahdaan qof iyo cod ayaa dhici karaayo analysis ahaan maxaa yani base ahaan aad ugu saleyn karaysaan ayadoo xaalado badan oo hostile ay jiraan maxaa cad oo dhigi kartaan taas factorskaas oo hadda negative ka positive isku bedeli kara factorskaas oo hostile ka saasoo noqon kara oo aad ku saleyn karaysaan in doorasho qof iyo maxay oo xor ah qof iyo cod ah Xaliime Ismaaciil Xaliime Yarey gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaran oo carabka ku dhufatay in 2020 ay suurtagal tahay doorasho qof iyo cod ah in Soomaaliya ay ka dhacdo ayaa dhammaan ka jawaabtay su'aalihii qaar ka mid ah senatarada golaha aqalka sare ay weydiiyeen marka ugu horeyso xukuumad ama baarlamaan xukuumad ha noqoto federaal ama mid dowlad goboleed ha noqotee wax shaqo ay ku leeyihiin ma leh sharci ay u haystaanna ma leh inay caddeeyaan doorashada goorta ay dhacayso iyo markay dhacayso iyo see u dhacayso wax ay shaqo ku leeyihiin sida u dhacayso nidaamkeeda sharciga doorashadaas soo caddeynaa baarlamaankaana soo ansixinaa haddii ilaahay idmo waqtiga ay dhacayso la iclaaminayana cid kale oo mandate u leh ma jirto oo aan guddiga doorashada ahayn didiilada ugu weyn oon haysano waxaa shacabka Soomaaliyeed inay xoroobaan ay rabaan waxay aaminsan yihiin inaysan xor ahayn waxay aaminsan yihiin qofkii ayaga ay rabeen inaysan soo dooranin shacabka Soomaaliyeed waxay rabaan doorasho qof iyo cod ah siday ku heli lahaayeen ay dariiqi u mari lahaayeen la yihiin mas'uuliyadda idinka saaran marka siday ku heli lahaayeen ay dariiqi ka heli lahaayeen ina ay fulisiin ugu dambeyn gudoomiyaha golaha aqalka sare Cabdi Xashe Cabdullaahi ayaa soo gabagabeeyay kulanka iyaguna way noo jawaabeen waxaan filayaa shirkeenu ka kaamaan arrinta ku saabsanaa intaasay ahayd aad iyo aad bay u mahadsan yihiin senataraduna aad bay u mahadsan yihiin shirkiina halkaasuu inoogu xiran yahay dhowaan ayay ahayd markii golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ay meel mariyeen sharciga doorashooyinka qaran ee dalka waxaana arrintaasi ay keentay muran badan iyadoo qaar ka mid ah dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda dhexe ay ka soo horjeesteen sharcigaasi dhowaan ay ahayd markii wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ay laashay imtixaan muddo 3 maalin ah ay galayeen ardayda dugsiyada sare oo u socday imtixaanka kama dambaysta ah xilli ardayda dugsiyada sare ee deegaanada Hirshabeelle ay ka soo horjeesteen qaadista imtixaanka dowladda ee ku celiska
ayaa waxaa magaalada Jowhar ee caasimada maamulka Hirshabelle soo gaaray wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdulaahi Goodax Bare, wasiirka amniga Soomaaliya Maxamed Islow Ducaale iyo mas'uuliyiin ka socotay xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka. kulan saacado badan qaato ay dabajoog ka ee saxaafadda ayaa ka dhacay madaxtooyada Hirshabelle. kulankaas oo albaabada u xirnaa wafdiga dowladda Soomaaliya iyo madaxda Hirshabelle. is-afgarad kadib wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya xildhibaan Goodax Bare ayaa la kulmay ardayda diidan imtixaanka, macallimiin iyo waalidiin. haddii aan nahay ubadka dhalinyarada Soomaaliyeed aan nahay ubadkii u bixi wadankan u soo bixi lahay sanadkani waxaan ugu baahanahay wasiirka wasaaradda waxbarashada inuu arintan kala laabto. anaga fartamaad inuu harsanan galayna wax kale aan halkan diyaar ugu nahay ma jirto. 6 maadan galnay waan u rafaadnay waan u dhibaatoonay waan sinaan ugu marnaanka ina haddana in nolol safriista war imtixaanka goorta soo baxay habeenkii ugu horeysay soo baxay waa labada arkay waxaan laga rabnaa wax ugu qabtaan. الأحمد مركن قلنا للسجاي أنا ضلنا الله محل مجلسي ما قليسان أفرت مادو كل تبني يقول وحنا لاي أفرت مادن قلنا وحكي عن ديار قلنا هاي مجرته iyadoo 3 maalin exam aan soo galnay 6 maada aan ka soo baxnay juhdigeen u soo bixinay cibaado la'aan nagu dhacay wiligeed kama dhicin exam adduunyo anagoo ku jirno salaada cibaadadeena ina iyadoo imtixaan ku jirno salaada duhur nagu la aadaamo 8 saac maalinimo aan ka soo baxno 8 saac maalinimo anagoo ka soo baxnay oo wasiirkeena wasaaradda waxbarashada inoo hal habeenaha kamid inoo imid telefishinka qaranka Soomaaliyeed soo fidhiistay kuna yiraahdo examkii 6 maada ah la soo galay cancel waa xaqiiqadii laga hadlo taas cadaaladeena ma ahan anaga cadaaladeena rabnaa cadaaladeena diyaar u nahay waxaana anaga wasiirka wasaaradda waxbarashada aan ka codsiinayna 4 maado noo dhiman hadduu noo dhameystira laakiin anaga exam hadda iyo kadib ma bilaabi karno. wasiirkeena waxbarashada waxaan u sheegaynaa ciddi falkan ama facshigan dhigtay inay wax ka qabata inuu u qaban ardadaas waxay qabatay hadduu ilaahay raalli ka noqdo ayaan taasan ka rajeynayaa. tan kaleento waxa la hadlayo ama horjoogo waa ubadkiisa waa ardadiisa waa kuwa birita asiga uu xilku u dhiibi lahaa codsigoodana meel inuu mariyo ayaan jeclaan lahayn. madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare oo ka hadlay kulanka ayaa ardayda u sheegay in muhiim ay tahay tixgelinta waqtiga imtixaanka la galayo. waxa uu sidoo kale sheegay in imtixaanka dowladda ay tahay mid dalka oo dhan laga qaadayo. annagu ma rabno in lodka 2018 iyo 19 shahaadadooda magacooda mustaqbalkooda in mugdi la geliyo ma rabno taas ayaa noogu muhiimsan. waxa kale oo noo muhiimsan dibkii dhacay in laga garaabo laga raali bixin geliyo muxuu laga bixiyo muxuu ii sheeg raalinimo ardada loo naxariisto waqtiga imtixaanku dhacay la tixgeliyo waqtiga uu dhici doono la tixgeliyo. runtii inkastoo wasiirku ka hadlay duruufaha keenay haddana xalay waxaan akhrinayaa report wadan muxuu Yurub ku yaala oo imtixaankiisi dib loo dhigaayo maadaama ay Ramadaan ay tahay imtixaanka GCC da la yiraahdo oo systemka Ingiriiska haddiiba wadanan muslim ahayn oo Ramadaankii dirtiis karaamo oo imtixaanaadkii uu dib u dhigaayo oo waalidiintii u tixgelinayo annagu waa qabnaa inaan tixgelino. imtixaankan imtixaan caam waaye oo standardized test wadanka oo dhan hal mataqaana cabira wax lagu cabira Soomaaliya wax la qabnaa. wasiirka amniga Soomaaliya Maxamed Islow Ducaale ayaa tilmaamay in suurtagal aysan ahayn ardayda inay qash helaan. marka dadka isku mid inay noqdaan ardayda oo kulligooda qash ay wada haystaan wax suurtoobay ma ahan. wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdulaahi Goodax Bare oo ardayda la hadlayay ayaa ku qanciyay inay galaan imtixaanka. sidoo kale waxa uu sheegay in uu fashilmay imtixaan isla markaana maamulka Puntland uu ka fashilmay imtixaankii shahaadiga. anigana aan tago raadiyo oo aan ka sheego imtixaankaas waa fashilmay waana la baaba'shay waxa waaye wax ugu sahlan ma ahayn arrin sahlan ma ahayn waxaan jecelahay ku ordayna ma ahayn waxaan rabaa ardayda iyo waalidiinta iyo maamulada iskuulaadka iyo gaar ahaan maamulka Hirshabelle inaan intaa fahamsiiyo taadaan soo jeedi lahaa waxa weeye shahaadada la qaadanayo aan difaacano taas waa mid qiimaha leh imtixaan waa fashilmaa
saacaddan la joogo puntland imtixaana qaadaysa waa fashilma wadamada dariska waa ka fashilma adduunku waa ka fashilma dhaqdhaqaaqa al-shabaab ayaa weerar waxa ay ku qaadeen oo dhowr jaha ah ciidamada Itoobiyaanka ay degan degmada Baardheer ee gobolka Gedo qasaare ayaa ka dhashay weerarka oo labada dhinac kadib markii xabado iyo hubka noocyadiisa kala duwan ay isdhaafsadeen iyadoona dadka deegaanka inta badan wax saameyn aan soo gaarin laakiin waxa ay sheegeen in ay jirto qasaare labada dhinac ah weerarka ayaa dhowr jiha loogu soo qaaday ciidamada Itoobiyaanka ee fariisimaha ku ahaa gobolkaasi Gedo waxaana mararka qaar dhacda gobolada Gedo iyo Jubbooyinka in weerar ay al-shabaab ku soo qaadaan xarumo dawladeed ama goob ay degan yihiin ciidamada nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya dawladaha Ruushka Turkiga Mareykanka ayaa faragelin waxa ay ku hayaan qalalaasaha iyo dhibaatada ka socota dalka Suuriya waxaana ay la kala safan yihiin xukuumadda iyo mucaaradka xukuumadda uu hogaamiyo Bashar al-Assad oo mucaaradka ay hore uga soo horjeesteen ayaa kala taabacsan Mareykanka iyo Ruushka taasina waxa ay keentay in dad badan oo dad Suuriyaan ah ay dhibaato badan ka soo gaarto iyadoo xirooyinka waaweyn ee dalkaasina lagu hayo kumanaan dad ah oo u dhashay dalka Syria oo ku dhibaataysan gudaha xiradaasi iyadoona xaalad bini'aadanimo oo aad ah laga soo sheegayo waqtiyadan guud ahaan ayaan ku soo afmeeraya wararkii Taha Media aad kala socoteen tan iyo intaan warkan warka xigay ka kulmi doono nabaddiino